kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walbo aad ku sugan tihiin iyo si walbo idin soo gaaraya maqalkayaga kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhabka hadal qodobka aynu ka eegi doono maanta waa wararkii ugu dambeeyay dagaalada Itoobiya iyadoo aynu ognahay in dagaalada Itoobiya ka socda ay sana jirsadeen ayaa bishii la soo dhaafay waxay reer galbeedka warbaahintooda inoo tabinayeen in caasimada dalkaasi Itoobiya ay Addis Ababa ay qabsan doonaan jabhadda fallaagada ah ee TPLF balse bil kadib arintu waxay u muuqataa inaysan dhicin TPLF na gadaal dib loogu celin doono godadkii ay ku jireen qaybtan waxay la qayb qaadan doona ilka case inagoo ku eegi doona guud ahaan wararkii ugu dambeeyay dagaalada dalka Itoobiya ilka case soo dhow aad ma santahay waxa deeqan dhaw maalmihii ugu dambeeyay Itoobiya waxa ka socday dagaal aad u qaraar dawladdu waxay sheeganaysaa guulo bal waxaad xog naga siisaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ma santahay maxamed deeqo dawaashana salaamayna hadii aan ugu galno wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada waqooyiga dalka Itoobiya maalmihii ugu dambeeyay dawladdu talaabooyin aad u xoogan bay qaaday kuwaas oo TPLF looga saaray magaalooyin aad u fara badan dagaalada culus iyo gulufka ay dawladdu qaaday waxa uu ahaa mid uu hogaaminayay isla markaana uu furinta hore ama jiida dagaalka uu horkacay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed kaas oo dhiirigelin siiyay ciidamadii dawladda federaalka militariga sidoo kale maleeshiyaadka ka soo jeeda qowmiyadda Axmaarada iyo Canfarta iyo ciidamada gaarka ah ee labadaasi qowmiyadood oo ahaa deegaanada ay dagaaladii ugu badnaa ama ugu cusla ay ka dhacayeen isla markaana goobo badan oo kamid ah TPLF ay la wareegtay markii ay soo rogaal celisay gulufkii ugu dambeeyay dawladdu qaaday waxay ku qabsatay magaalooyin fara badan shay waxaan tabeynay in magaalooyin istiraatiiji TPLF ay ka sii baxayso magaalada Lalibela oo ah magaalo istiraatiiji ah oo ku taala gobolka Axmaarada waqooyiga dalkaasi ayay TPLF isaga baxday iyadoo wax dagaal ah aysan dhicin isla markaana wax iska horimaada aysan dhinacyadu dhaxmarin ciidamada militariga dalka Itoobiya kuwa gaarka ah ee qowmiyadda Axmaarada maleeshiyad Axmaaraha kuwa Fano iyagana Axmaarada yaa si buuxda u la wareegay magaalada Lalibela kadib markay ka baxeen kooxda fallaagada ee TPLF magaalooyin kale iyagana muhiim ah oo iyagana ay ka baxeen ayaa jirtay waxa inta dheeraa magaalooyinka kale ay dagaalada culus ay ku qabsadeen gobolka Canfarta iyo gobolka Axmaarada ka tirsanaa oo ay si dirqiha looga saaray TPLF kadib dagaalo culus oo aan waxba la isla reebanin oo ay iskaga hor yimaadeen labada dhinac dawladdu waxay sheegtay in guulo waaweyn oo la taaban karo ay gaadhay dagaalka magaalooyin waaweyn ay ka qabsatay walina ay ku sii siqayso kuwa kale in ay dib uga qabsato oo TPLF dib loogu celiyo deegaanka Tigray marka waxaan moodaa talaabooyinkii ugu dambeeyay ee dawladdu ay qaaday inay ahaayeen kuwa qorsheysnaa istiraatiijiyad ahaan iyo waliba qaabkii dawladdu ay hawlgaladan ay u fulinaysay isla markaana guulo waaweyn ay ka gaadhay walina ay sii wado ciidankuna ay dhiirigelin iyo maaragtay waxa weeye taageeraba ay heleen ra'iisul wasaaraha oo furinta ku suganna uu wax badan dagaalka iyo qaabkii uu wax u socday iyo qorshihii markii hore lagu howlgalayay uu ka bedelay taasna ay soo dadjisay dawladdu guulahan la taaban kara ay gaadhay iyo fashilka iyo guuldarooyinka isdaba joogga ah maalmihii u dambeeyay ay la kulmayeen kooxahan fallaagada ee TPLF ay horkacayso marka deegaanka Axmaarada intiisa badan iyo deegaanka Canfarta intiisa badanba waxa laga saaray kooxdan TPLF wali magaalooyinka ugu dambeeyay ayaa ka sii carareysay oo waxa way ka sii baxayay maadaama culays badan iyo weerar aad maaragtay isdaba joog oo aad u culus ay dawladda kala kulmayeen taa waxay qasabtay meelihii xoog looga saaray mooyee in kuwii kaleete culayska jira iyo maaragtay waxa ku socda markay arkeen ee ay u babacdhig waayeen inay maarsaga baxaan burqa deegaanka la dhaho ku yaala gobolkan Canfarta oo xadka deegaanka Axmaarada u jira 15 ilaa 20 kilomitir waxa ka dhacay dagaal aad u culus oo aysan kala food qaadin dhinacyada oo har habeen ay dagaalamayeen halkaas waxa yaala oo wariye Al Jazeera u shaqeeyay qaybta Carabiga uu soo tabiyay taangiyadii hubkii lagu dagaalamayay goobihii dhufaysida ciidamadu ay maartay ku sugnaayeen oo aad dareemayso dagaalka meesha ka dhacay inuu ahaa mid aad iyo aad u culus ugu dambeyntiina TPLF halkaas ku sugnayd laga dhigay
wax la laayay oo dagaal ku dhintay iyo wax meesha iskaga cararo nafta la baxsaday marka inta badan deegaanka canfarta waa laga saaray TPLF deegaanka xamaaradana in badan oo kamid ah waxa iyagu hadda ay ka sii carareen iyo wax ay xoog looga saaray oo dagaal ay maartay looga saaray ayaa laga dhigay waxa kala jira muuqaalo la soo bandhigayo TPLF oo cararaysa dhul buuraley ah oo ay ku socdaan madaafiic aad u culus oo lagu garaacayo iyo hub maartay dhawqiisa aysan xamili karin iyaga oo cararayo cagaa wax ka dayo oo lafahooda la baxsanaya marka inta badan dawladdu waxay sheegtay deegaanadii ay ka qabsatay ama ay isaga carareen kooxdan Tigrayga ee TPLF falaagada in ay u sameysay dawladdu maamul iyo kala dambeyn waxa guud ahaanba deegaanadan laga hirgeliyay xaaladda degdeg ahayd ee wadanka horey dawladdu ay ugu soo rogtay dhammaanba deegaanada TPLF laga qabsaday dawladdu ay gacanta ay ku dhigtay waxa lagu soo rogay bandow 12 ilaa 12 kala waa 12 waxa weeye maqribnimo ilaa 12 kale subaxnimo ayaa lagu soo rogay si loola socdo amniga iyo xasiloonida magaalooyinka waxaa ka dhacay dabaaldega dadka shacabka ay sameeyeen oo lagu dabaaldegay guusha dawladdu ay gaadhay ciidamaduna ay waxa weeye guuldarooyinka ay dusha u saareen kooxdan TPLF oo dharbaaxo culus maartay ku dhuftay waxa kale oo la sameeyay gudiyo isku dhafaha oo xaaladan degdega iyagu ka shaqeeya hirgelinteeda gudiyadaasi waxa kale ay ka shaqeynayaan aruurinta wixii dhibaatooyin ah nafiya maalba TPLF ay u geystay dadkii ku dhaqanaa magaalooyinkaasi waxa kale oo gudigan loo xilsaaray in ay soo aruuriyaan macluumaad la xiriira hantidii dawladda iyo xarumihii dawladda wax kasta oo dhibaato ah ama boob ah oo kooxdan TPLF ama burbur ah oo ay u geysatay garsoorka oo kale ayaa sidoo kale iyagana deegaanadaas laga sameeyay iyagana waxa macluumaadka la soo aruuriyay iyo xogaha la xiriira arrimaha dhamaan in ay iyagana waxa weeye ay diiwaan geliyaan isla markaana ay u gudbiyaan hay'adaha arrimahan ay khusayso si talaabo loo qaado cid kasta oo markaasi ku lug lahayd arrintan marka xaalka halkaas uu maraya TPLF waxa moodaa in jab aad u xoogan iyo guuldarooyin waaweyn dusha loo saariyay dharbaaxa culusna ay ku dhufteen ciidamadan isgarabsanaya ee kuwa militariga iyo kuwa gaarka ah ee deegaanadan axmaarada iyo canfarta waxaana hadda aad moodaa in mudaamada sida xaqiiqada ah in caalsaaraha waxa weeye ama gacanta sare ay leedahay dawladda federaalka Itoobiya ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isagoo furunta ku sugan isla markaana hogaaminaya dagaalka lagula jiro kooxaha falaagada wata ilkaas aad u mahadsan tahay markaynu eegno dadaalada iyo horumarada ay sameynayaan ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale ciidamada gaarka ah ee maamulada canfarta iyo amxarada maxay tahay waxa ka dambeeya guushan ay gaarayaan ciidamada وما سنتهي جوشن طبعا دجال كم كل فيري أما دجال مركل للجلو مرلبا كل يبا كوح وما يجعن سريس كوح ولا يقوليستا هذا مركل فيري دجال كتب بلا سما الله اسمه أوران كرر نعمل ولا يقوليستي سوته مركل دجال كوب بلودتي بلف وعندك ديان كود ولا جوا صاري وكي مقالة دوري تومبري أما ما أعرف تبعت جوده أما دوري تومبري لو تجي وحلو أركي إن الشبيه أو تي بلف فيصل مرضى مسؤول لابندن وكي سور رجال عليي ديان كود إسكت في حتة ديجاندي عن فرطة يا حمارة جعنت كده أنت وحكي دنبي تلابوين يو مجالوين أي قبسانيين يا دردر أي ودين وحنا لو أركي إن أي مركلة سي 91 كي أما كنت صار بساشن كودي دعاني ودن كأي مركلة أي لو ريق دونان لكن تبدل كذا وحي يقولها يوحي مقالوين أي قبسانيين يوحي هرمرها أي سمينيين إيو عاسلودي أدسو أي لهايين وقالينا واحد بنوجرها هذا وحا كدن بي إن يجي لسيبع سنة يقولكي أي قبسان دمان بلغسي أريه مركا سيدا موقتا مركا فيريو دور أرمود أيا دقالك وحكا بدرين كو عدادسكي دولة باشا عالمكا أو أي كخفيفيين مظاهراتيال أما دبدبحيال دولة تاغيرسان أو وحاوي عالمكا كسميي مظاهراتيو لوغا سو horjeedo faragelin markaas iyaga ay ka cabanayeen lagu hayo dawladda Itoobiya iyo madaxbannaanida wadankaasi oo lagu taageerayo dawladda
oo siba Mareykanka kale looga soo horjeeday wax badan waxay ka khafiifiyeen cadaadiskii diblomaasiyadeed ee caalamka kaga socday dowladda Abiy Ahmed sidoo kale waxa wax ka caawiyay dowladda Abiy Ahmed taageero iyo maartay diyaaradaha dagaalka oo la sheegay in dalalkan Iran Turkiga iyo Imaaraadka ay ugu deeqeen ama ayba waxa weeye ka iibsadeen ama ku taageeray iyo hub dowladda federaalka ee Ethiopia taasna awood fara badan bay ciidankii iyo dhiirigelin hub culus oo ku dagaalamaan oo casri ah oo waxa weeye TPLF hadda lagu eryanay sidoo kale waxa moodaa ra'iisul wasaaraha jiida hore uu tagay in wax badan ka bedelay habkii uu wax u socday guldarooyinka ciidanka militariga iyo kuwa kale isbahaysanayaan markii hore dagaalka ay kala kulmayeen in istiraatiijiyadii iyo qaabkii lagu dagaalamayay wax badan uu ka bedelay in ciidankii ay waxa weeye taageero waxa weeye niyad ahaan in wax badan ay waxa weeye siisay ra'iisul wasaaraha iyo maartay ku sugnaanshihiisa furimaha hore ee dagaalka isla markaana wax badan maadaama ninkan uu ciidan ahaan jiray wax badan maartay ka caawiyay marka inahaas iyo wixii kale ee macquul markii la fiiriyo waxa la dhihi karaa in uu wax ka bedelay furimaha hore ee dagaalka marka TPLF na halka ay marayso waynu ognahay darbaxa kulul baa ku dhacday laakiin ciyaar waa gelinta Mali lama ogo waxa isbedeli doona وهي الكعس هذا ما صنتهاي إن سيدان كور قبنيبا TPLF سراكيشة وسريسا مرة والباقي لو ريجان ديجان عصوبة مهر مرة كسمية دجالك وحيل هذا جري مرباهين تعالمي جا يجو شيء جري هالكي وحمريان هذا ديجان أنا لقى قبصة يجيب كان لو جيستي ولي ما كهذلين سؤالها مالمه قدام بيساعد كل سوي دينية هي TPLF أو آت لو يقاني إن ورباهين تعالمي جو كل آد ولا هضان ورصحافيدي آد يصاص صاران قولوا كشكتان ديجانا قبصدان حوي أنت بدور ورباهين كعدية محابيس وبندقي شيء واحد مالمه قدام بي دولده يقولها شيء جنيس إن مقالون نقصاري دولده أي شيء جنيس TPLF أي أقام مصنعين أما يقام مصنعين هولهان تانا وح كم ركعية wixii iyaga ku dhacay oo ay la aamusnaayeen laakiin ugu dambeyntii wartaxafadeed ayay soo saareen wartaxafadeedkaas oo ay uga hadleen xaaladda dagaalka wartaxafadeedkan waxyaabaha uga hadleen waxa kamid ahaa TPLF ay sheegtay in istiraatiijiyadii dagaalka ay bedeshay macnaheedu waxa weeye wixii hore iyo qaabkii ay ku hawlgalayeen ayaa lagu fahmay guuldarooyin dhabarka loo saariyay sadaraadad hadda way ku qasbayeen sida iyagu ay sheegeen in bal ay wuxuun ka bedelaan qaabkii hore ee dagaalka ay ku galayeen sidoo kale waxay sheegeen in meelaha qaar ay si nabada ay uga baxeen waa magaalooyinkii dabcan ay ka carareen nabadna maysan uga baxeen cabsi bay uga baxeen maadaama culays badan uu soo foosaaray waxa kale oo ay sheegeen in dagaalka ay wadayaan oo aysan joojinaynin sidoo kale waxay sheegeen in meelaha ay ka baxeen ay uga baxeen xaalad dagaal waan ogeyn markii dagaalku uu ku bilowday 2020kii dhamaadkeedii dhul badan bay isaga ka sii baxeen iyagoo wax dagaal markaas aan ku qabsan sida caasimada Maqal oo kale deegaanka Tigrayga way ka baxeen iyadoo ciidanka militariga uu san gaarin kaso markaasi lagu sii dhawaa wax dagaal ma aysan sameeynin markaas iyagoo oo culayskii haystay iyo qiimeynayay hadii ay magaalooyinkooda ku dagaalamaan mar walba khasaaraha in iyaga u waartay iyagoo ay kuwa khasaaraya oo dhulkooda burbur uu soo ka soo gaaray dagaalka marka waxay dhahaan ama ay ku tilmaamaan waxba kama jiraan dawladdu sheegashooyinkooda ah in ay magaalooyin waaweyn oo muhiim ah ka qabsatay laakiin hadalka markii la fiiriyo iyaga waa beentood sababtoo ah iyaga la tirkooda ayaa sheegay in magaalooyin ay ka baxeen si nabadan ay uga baxeen xeelad dagaalna ay uga baxeen bay sheegayaan haddana waxay leeyihiin dawladdu magaalooyin ma aysan naga qabsan waa wax iska hor imanaya laakiin sida marka la fiiriyo hadalkooda waxay ula jeedaan baa dhici karta in ay leeyihiin macnaha xoog magaalooyin lama qabsanina anaga si nabad ah iyo xeelad dagaal uga baxnay laakiin magaalooyinku waxay isugu jiraan kuwa ay ka sii baxaan ama ay ka sii carareen hadda tanba oo cabsi iyo culayska haysta dadad iyo jabka magaalooyinka qaar ku soo gaaray ay uga cararayaan iyo kuwa si dirqi looga saaray oo waxa weeye dagaal uu ka dhacay oo iyaga qayb la laayay iyo qayb maarta markaas lafahooda u baqday ama lafahooda u cararay ay noqdeen marka iyagu wartaxafadeedkaas ayay soo saareen xaaladuna wali waa
dhulku waxa weeye dagaalo ayaa ka socda magaalooyin waaweyn waa ay ka sii baxeen kuwa kalena dawladdu ayaa ka qabsatay marka bal wixii warar iyo macluumaad ee ku soo kordha halka uu wax maray iyo wixii maaragtay dambe yimaada halka uu dagaalku ku jihaysan yahay iyo wixii isbedel yimaada iyo dawladdu bal talaabooyinka ay qaado iyo TPLF hadii la soo rogaal ciisadii ay waxoogaa bal wax hormar ay samayso insha Allah hadii yiraahdo daawadaashan wadaagi doona وهيك daawadayaal ilkaasi aad ayuu mahadsan yahay qof walba ee naga mid ah waxa uu ka warqabaa halka iyo sida uu ku bilowday dagaalka Ethiopia balse ma jirto cid og sida iyo halka uu ku dhamaan doono wax walba oo ku soo kordha barnaamijyadeena kale aad ka daawan doontaan qaybtan intaas ayaan ku soo afmeerinaa inta dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh